إن شاء الله الدرس هو حكوسها بسيسا ولالكو الشاقي إصلاح ذات البين أما هقاتشين لهقاتشيو ذات البين كلمة الذات صاحب البين واحد هذا في اللغة العربية ومن المتضادات وكلمات كمعنى اسكسور تشيدله الفرقة والوصل ولا بضب ويد هذا على كل حال وإن لهقاتشيو ضدك مسلمين تاه وحاول حياة دحدود ربط الله أصلكو وددك مسلمين تين يكون النولادان الأخوة ولا النمو بل بني آدم كودن بي أصلوتي التعايش السلمي إنه إنسانكو نبض وضع النولاده لكن لبع اللبا واجرته مدنك إلا ينوي تحامي إبليسها والشقاق يخلافك يهي أخطر الأسلحة هبك وقوين وهيسته ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المام إنه كقوستي إن جزيرة العربية مدول كان مسلمين تدقان إن لقوا عابد إلهي غيرك لكن التحرش بينكم إنه ولي شقدي ستي أما حديث قاركودو تلمامي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إبليس قويني بدأ كرسي دكتو وعيدا موسود دايو وعيدا مدى سيدتك مسلمين تاي دحقلان يبقى آدمها بلوميان دبتنا كو قصود دوين بدن يهينا كمي تاي كريرها اسكدرة ورياها يا حافظة كاسكدرة إنه كمي دي هاي كو أبال مركا وقوين لسيا وسود دويو كاسي دنبو چوغا دن لبادنا بني آدمكم ملائك ماها مسلمين تنوى بشر يخطئون ويصيبون ويعسر أن تتفق آراؤهم وإحنا اسكو وافقان إحنا اسكو خلافا يعني وحوا خطأ وقدعيا وحوا أصيبا يا وبني آدم تسوحي كان سنة سين رأيي أنه كلا نوع نغضه وحيد هذا سيدا بني آدم كوجيدي سوك لنوع ينبا آرادي سنوك لقد سنتي سيدا قفوا لبا عالم قاروية هاي بركا وجهي سلاغو ayaa maskaxda ka dambaysanay caalam gaar ah u tahay haddana sida inuu bini aadamka una isku wajiga u wadanahay ayaa waxaynu wada wanaagno aaraayna jiraya bini aadam baynu wajiga ka wadano nin walba laba indhood iyo saniya af iyo laba sunniyood iyo intaas uu leeyahay xaggana way isaga wada eegnay idan waana isu eegnay waana kala gadisanay aqliga bini aadamka iyo aaraadiisa si uu fakarayana waa sida waana isu eeg yahay waana kala gadisan yahay wuxuu ku kala gadisayna waa jiraan waxa kale oo inta dheer masaalixda bini aadamka waa kala masaalix waxa soo dhamay waxay keensanayaan iyaguna in dadku khilaafaadku ay jiri karaan hadaba khilaaf kasto jira shariicada islaamiga marnaba ma banaynin taqaatuca in la isgooyo waxa kuugu filan inuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaam muslim warinayo albaabada jannada ayaa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista dabeetana ilaahay waa u dambi dhaafaa qof kasta oo addoomihiisa ka mid aan cidna ugu shariik yeelaynin laba nin mooyaane buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba iyagu maalinta isniinta iyo khamiista arrinkoodu dib loo dhigaa labadani maxay sameeyeen waxaa la yidhi waa ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qof isaga iyo walaalkii colaad iyo dhib iyo muran u dhex yaalay qoladaa waxay ilaahay yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa labadan arrinkooda dib ha loo dhigo intay ka heshiinayaan baa la yidhaha labadan arrinkooda dib ha loo dhigo idan weynideeda waxaad ka garanaysaa dadku inuu isqabto oo kala go'o oo murmo xumaanta ay leedahay waxay keensanaysaa acmaashaadii khayrka ahayd in la aqbali waayo inaad noqoto kuwa alla u dambi dhaafaya in lagaa reebo ilaa iyo ninkan heshiisaan waxaana macruufa xadiidkii ku yaalay sunan abu daawud iyo ibnu maajaan rajaynaya iyo keyrkoodba sheekh albani saxiixa ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyahay man hajara akhaahu sanatan fahuwa kasafki dami أما هجر المسلم كسفك الدم رواية كلنا وصار أدب المفرد للإمام البخاري على كل حديثك وحوت المامية
inaad walaalkaa goyso shaxnaa bay tii hor ahayd colaadiyo inaydi dhex taallo inaad goyso muqaataca ku samaysaana waad ka hijrootaana sanad inaad hijro iyo cadho iyo dudmo ku maqan tahayna inaad dhiiggiisa quftay la mid tahay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dhiig qof muslimoo la daadiyaana waxaynu garanaynaa sida uu weeyey haddaba bini aadamku kala tagga kuma habboona qofka muslimkaana aakhiradiisa iyo adduunkiisa midnaba faa'iida uguma jirto colaaddu idan waxaa loo baahan yahay in colaadda laga tallaabsado bini aadamka isqabadkiisu maraaxisha uu maroo dhan islaamku markaa qaab loo farsameeyo oo colaaddaa iyo dhibtaa iyo cadhadaa iyo ishayntaa loo saaro ha ahaato maraaxisha hore hadday maraysee ah xoogaaga muranka iyo caloolxumada ama maraaxisha ku xigta hadday gaadhee ah alhajru waatabaacud in la kala guuro ama la isgooyo ama maraaxisha ugu dambaysa hadday gaadho ah in la isdilo oo la isku xadgudbo intaba islaamku xal buu u sameeyey idan mawduuca in dadka la heshiisiiyo oo la walaaleeyo waa mawduuc islaamka aada ugu weyn walaalayntaasina raadna waa ku leedahay nolosha qofka muslimka ah ka fardi ahaan qof ahaan iyo bulsho ahaan qabiilo ahaan shirkado ahaan dowlado ahaan iyo shucuub ahaan mid kastaba raad bay ku leedahay ishaynta iyo muranku sidaa awgeed baa shicaar qur-aanku wuxuu ka dhigay waasulxu khayr baa ilaahay yidhi waasulxu khayr sulxi dhammaantii sulxi sharciga waafaqsane waa khayr baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala heshiisku in la heshiiyo oo dadku iscalool xaadho oo issuur maydho oo walaaloobo oo la heshiiyaa waa khayr buu ayuu qur-aanku tilmaamaya rabbi subxaanahu wa tacaala aadanaha maanta noolla tajaaribta nololeed waxay bartay fikirka qaanuuniga ee caalamiga ee maantu inuu u janjeedho naxwa asulxi waalmufaawadaat inuu bini aadamku heshiiyo oo gorgortamo oo aanu colaad iyo xoog iyo ismuquunin ku xallilin dhibaatooyinka dhexdiisa dhacda walidaalika maanta duwalka dunida jira waxay leeyihiin xafiisyo u furan inay ummadda heshiisiiyaan reeraha isqabta cidda muranta cidda waa consulting waa dad loogu talagalay inay dadka heshiisiyaan ciddaysa xafiis bay tegaysaa waxaanay u tegaysaa xafiiskani mediation ku yaqaanaa sida dadka loo dhexgalo farsamada dad yaqaano weeyaan marka wuxuu isku kiindayayaa inuu isu keeno xataa maxaakimta waaweyn ee dunida waxay isku daydaa qofka intaan xukumka la ridin oo aan garnaq iyo xukum la gaadhin in dadka musaalaxa laga raadiyo oo looyradooda la isu diro oo la yidhaahdo bal inaad musaalaxa samayn kartaan dib u noqda waana masaladii cumar bn اlkhaaab uu lahaa radia allahu canhu wa ardaa ahar baa laga sheegaa uu leeyahy raddu اlkhusuuma xataa yasطalixuu faina faslu اlqadaءi yuuriثu baynahum الdaqaa'in cumar bn اlkhaaab waxaa laga sheegay inuu yidhi qudaadu wuxuu leeyahay dadka ishaya bal dib u celiya intay ka heshiinayaan waayo waxaaba laga yaabaa xukumka qaadiga iyo maxkamaddu inaanu dadka laabtooda maydhin walow xuquuqda uu rido yani waxay yidhahdaan culammadu alqadaa'u radd اlxuquuq buu sameeyaa sulxiguna waxay yidhaahdaan radd اlquluub buu sameeyaa qadaagu xuquuqdu buu kala gooyaa laakiin waxay leeyihiin heshiisiinta iyo sulxiga iyo dhexdhexaadintu quluubta dadkay dib u walaalaysaa idan ayuha alaxiba khilaafka iyo muranku waa xanuun waxa laga dhaxlaana uu yahay dacfi iyo liidasho iyo tamar darro sulxiguna waa dawo waxa laga dhaxlaana uu yahay naxariis iyo quwo heshiisiintu markaa in dadka la heshiisiiyaa umamka dhaqan ahaan iyo taqaalid ahaan dad baa u quma dad baa u kaca dadkooda ahlu caqligaa dadkooda cuqaashaa dadkooda salaatiintaa dadkooda waaya araggaa waxay ka dhigan yihiin dadkaasi bulshada dhaqankeeda marka loo eego waxay uga dhigan yihiin addifaac ilmadani qoladan
maxaa la yidhaha dabdamiska marka meel dab ka dhacaba niman baa loo yadhaa dabdamis la yidhahdo markiiba damiya dadkan waayeelka ahi ummadda waxay u yihiin waa dabdamis khilaafaadka iyo muranka iyo isqabsiga iyo isdilka iyo reeraa kala furmaya iyo waxaasoo dhamme waa xaraa'iq bulshada ku huraya hadday bataana bulshadaasi way gubanaysaa bulshadu waa gubanaysaa ugu dambayn dabdamis cidda ka ahi waa waayeelka waa cuqaasha waa salaatiinta waa culammada waa waxgaradka waa dadka heeganka u ah inaanay ummaddu gubanin inaan ummadda dabku wada qabsanin ayuha alaxiba bini aadamku hadduu isqabto siyaabo badan buu isku dayaa inuu xalka u gaadho bini aadamka badh wuxuu isticmaalaa win-win situation waxay yidhaahdaan meel dhexayn la isugu yimaado adna aad guulaysato adna aan guulaysto nin la jebiyey iyo nin jabaytoonaya inaanu jirinee la heshiiyo maa ilwajhiga in dadkao dhan loo ilaaliyo waa sulxigaa keena bini aadamka badhna zero sum game buu isticmaalaa wuxuu isku dayaa inuu awoodda wax ku muquuniyo waxay gaaladu yidhaahdaan qiso kutubtooda hore iyo waxooda ku qoranoo shamshum theory ay yidhaahdaan bay soo sheegaan shamshum theorygu waa qiso khuraafaadkii ahlu kitaabku yahuudiya waxaas ay rumaysnaayeen ka mid oo waxay yidhaahdaan nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah marka wax kasta wuu dili jiray waxaa la yidhi war ninkan saynu isaga qabanaa waxaa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhu kaga jira ee mar uun timaha laga xiiro aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo aakhirkii waxa lagu guulaystay bay yidhahdeen in madaxa loo xiiro markaa ninkii uu tamar beelay waxay yidhahdeen haddaba yuu inagu soo kicine indhaha laga rido kiniisadda ha lagu xidho tay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen isbuuc walbana marbaa timaha laga xiiraa maalinunbaa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay maalin axadoo dee la isugu yimi meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhahdeen wixiiba wuu ku dumiyey laakiin hadda isna waa ku dhintay waxba ma faa'iideen waxay yidhaahdaan calaya wa calayk aniga iyo adigaba waa ha la isla dhinto dadka badh baa in la isku madho xal mooda in la isku madho oo hadna dhimo anna aan dhinto khalaas reeruhu ha madhaan dawladu ha madhaan cid waliba ha madhato waa caqliga ugu liita kaasina waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku uu xalka u raaco dadku markay isqabtaan saddex heer mid unbay maraan in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho التنازل عن الحقوق oo waa maxay waa waxa la yidhahdaa cafwiga inay cidi qaadato wixiisi inuu cafiyo inuu ka tanaasulo ma ahee in cid waliba xaqeedoo dhammaystiran doonto oo kaasina wuxuunbuu ku suurtogelayaa qadaaga in la tago in ilaahay kitaabkiisa loogu gar noqo oo ciddii gar le garta la siiyo cidda kalena la yidhaha halkaa ka bax labadaa mid u dhexeeyaa jira markaa xaqoo kaamila inaad hesho iyo xaq oo dhan inaad ka wada daadegto meel u dhaxaysaa jirta waa meesha la yidhahda islaaxu daati ilbayn aw isulx waa compromise waa adna wax ka taganaan wax ka tago labadeennuba aan guulaysanno meel dhexaan isugu nimaadno kii cafwiga taamka ana ma aha wax ka mid aad cafwiday laakiin xuquuqdii oo dhan kamaad wada tegin kii qadaaga ee lahaa cid walba xaqeedoo kaamil ha heshana ma aha waana inta badan bini aadamka ka ugu quruxda badan leh uu isku hayo waayo cafwiga dadka sare unbaa gaadha dad manaasishu taqwa dadka gaadhay ayuunbaa martabaddaa inta badan gaadha haddaba sulxigu fi shariica waa wax kasta oo dadkii ishayey murankooda lagu kor yeelo dadkii dagaalansanaa dagaalkooda lagu joojiyo ciddii xoolo ama dhiig ama wax kastaba ha isku hayaan ama diin waxay doonaanba ha isku hayaane in islaax iyo wanaag laga dhex raadiyo sulxiga alimaam ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahy sulxigu aqsaam buu u qaybsamaa waa sulxu lmuslimi maca alkaafir buu leeyahy gaal iyo muslim in la heshiisiinayo ama guri in la heshiisiinayo islaan iyo odaygeedii in la heshiisiinayo sulxu bayna zawjayn
ama imaamka muslimka ah iyo fiqh baaqiyo ku baxday in la heshiisiinayo dawlad iyo jabhad dawladdii sharciga ahayd shareecadu ogolayd iyo dad ka baxay oo ama qabiila ama jabhada ama waxay doonaana in la heshiisiinayo bay leeyihiin sulxigu wuxuu kaloo dhici karaa fi ljaraaxaat in qisaasta lagaa cafiyo oo maal lagu bedelo dilkii lagaa daayo maga lagaa qaato waa nooc min sulxiga ka mid a gacantii lagu goyn lahaa ama ishii lagaa ridi lahaa qofkaad ka riday uu ka tanaasulo oo maal uu ku bedesho waxaa kaloo sulxiga la yidhaahdaa khusuumaadka dadku isku hayaane kale ee xoolo leh ee waddooyin leh ee baabkaa leh nisaaca in la dhammeeyo haddaba fuqahada kutubtooda intaad aragto baabu sulxiga waa mucaamalaadka u dambeeya ama sulxiga muslimiinta iyo kufaarka udhexeeya baabulhudna bay kaga hadlaan sulxiga imaamka iyo buqaadda udhexeeya kitaabulbuqaat bay kaga hadlaan sulxiga zawjaynka udhexeeya kitaabulqasmi wannushuus bay kaga hadlaan idan kutubulfiqi markaad aragto baabu sulxigu abwaab iyo kutub tiro badan oo kale nooca ayuu ku jira laakiin innagu waxaynu ka warramaynaa isagoo isku duuduuban isagoo dhammaantiiya in dadka la heshiisiiyo ama gaal iyo muslim ha noqoto ama dawladda iyo inta ka soo horjeeda ha noqoto ama oday iyo islaanti iyo ishaya ha noqdo ama qabaa'il isdile iyo jamaacaad iyo kooxo isdile ha noqoto dadka in heshiis laga dhex raadiya sulxigaas shareecadu wayna faraysaa majaalaadka iyo mayaadiintiisaasi waxaa ka mid a ka ilaahay qur-aanka ku leeyahay wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraada waa kii guriga hadday haweenay ninkeeda inuu ka tago ama ka jeesto ama isla weyni ka dareento falaa junaaha calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa dhibi korkooda ma ahaan inay heshiiyaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala inay heshiiyaan oo isu tanaasulaan oo waxyaabihii laysku hayay wax ka mid ah laysaga tanaasulo waxa laysaga tanaasulayaa waa maxay waa bacd alxuquuq waa xuquuqdii wax ka mid a qofku inuu ka tanaasulo oo dabeetana meel dhexa la isugu yimaado ilaahay markaasi wuxuu leeyahy wasulxu khayr waar heshiiskaa khayrku ku jiraa baa ilaahay yidhi haddana ilaahay wuxuu sii daba dhigay wauxdirat ilanfusu shux naftana bakhaylnimadaa lagu xaadiriyey baa ilaahay yidhi bini aadamku waa waxaygii xaqaygii buu taagan yahi laakiin waa mansilo loo baahanya inaad ka korto qofku markuu garaad iyo caqli yeesho ayuu waa waxayagii un haddaad taagnaato waa beertaydii waa dhulkaygii waa waddankaygi waa dowladnimada waa waxaygii un haddaad taagnaato way adag tahay inay bini aadamku heshiisaan laakiin nooc min atanaasulaat bini aadamku inuu isu dhimriyo ilaahay wuxuu leeyahay nafta bini aadamka asalkeeda waxaa ah wa uxdirat ilanfusu shuxa bakhaylnimada iyo shaxiixnimada iyo waa waxaygeedu way ku xaadirsantay laakiin maxaa la yidhi wain tuxsinuu watattaquu faina allaha kana bima tacmaluuna khabiira haddaa ixsaan samaysaan ixsaanku waa atanaasul can bacdi alxuquuq cadaaladuna waa inaad waxaaga hesho haddaad ixsaan samaysaan oo alla ka cabsataan ilaahay waxaa samaynaysaan waa arkaya idan waxaa la leeyahay guryuhu qaanuun haddii la yidhaahdo ha lagu dhiso keliya dhisbaba maayaan hadday islaantuna tidhahdo waxaan xaq u leey oo dhan weyn halkaa la dhigaa odayguna yidhahdo waxaan xuquuq leey oo dhan weyn halkaa la dhigaa labadaasi wada noolaan maayaan gurigaasi wuu dumayaa gurigu muxuu ku dhisan yihi attanaasul odayguna waxyaabaha qaarkood inuu indhaa ka laabto faa'iidooyin badan oo kale wiilan ku qabaaye islaantuna waxyaabaha qaarkood inay indhaa ka laabato faa'iidooyin badan oo kale ayay ku qabtaaye laakiin hadduu qof waliba yidhahdo waxaygii soo taago waa adkaanaysaa idan sulxigu ilaahay wuxuu ina leeyahay war inaa islaax dhexdiina raadisaan dhibi kuma jirta baa ilaahay leeyahay sulxigaana khayrku ku jiraa baa ilaahay leeyahay sulxiga ayaa khayrku ku jira falaa tamiiluu kula almayl fatadaruuha kalmucallaqa wain tuslixuu watattaquu faina allaha kana gafuura raxiima nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu soo dhaqaaqay dabeetana gurigii inantiisii u yimi faatima markaasuu cali ka waayey cali xagguu qabtay baa la yidhi ayna ibnu camik waxay tidhi de waa isqabanayo intuu cadhooday buu dudo u iska tegey mid buu yidhi war bal cali ii raadi cali baa la soo raadiyo masaajidka isagoo iska hurdaa la helay
qum ya aba turaab waa markuu naanaystaa nebigu u bixinayay aba turaabow meesha ka kaco waa dhex galay nebigu calayhi salaatu wasalaam idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa afraadda iyo jamaacaadka iyo kooxaha iyo cid kastaba in la dhexdhexaadiyo bini aadamku isqabashadiisu wuxuu shalay ka tegay buu maanta dib u go'daayoo isku qabtaa bal u fiirso saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa dadkii u khayr badnaa ilaahay dartii bay dhulkoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodiiba ugu hijroodeen socankaa maaha hijrada waxay u galeen oo madiine u qabteen oo xoolahoodii iyo waxoodiiba uga tageen ilaahay dartii laakiin dagaalkii ugu horreeyey markay galeen waxoogaagii khaniimadee lasoo helay muran baa ka dhacay de waa nimankii shalayto ilaahay dartii uga yimi waxay xoolo iyo haysteen oo dhan iyo dhulkoodiiba oo ilaahay dartii u hijrooday iyo diinkooda inay ilaashadaan ayaa dagaalkii beder markii la galay waxoogaa xoolaa lasoo helay ayuunbaaba qaybteedii muran ka dhacay dadkii 3 qaybood bay u qaybsameenoo markii gaalada la jabiyey qola nebigay ku hadho way ilaalisay calayhi salaatu wasalaam qolana gaaladii jabtay dabada kaga dhacdo way sii eryatay qolana wixii gaaladu tuuraysay iyo xoolihii bay soo ururisay dabeetana qolana waxay dhahdeen de annagaa intan urursanay oo qaadanay qolana waxay dhahdeen war maydaan urursateen gaaladaanu naba ku daba jirnaye waa qaadan kari lahayn xoolo urursi haddaanu doonayno qaarna waxay dhaheen nebigaanu ilaalinay calayhi salaatu wasalaam murankaasaa yimi ilaahay murankaa yara bilaabmay buu qur'aanka soo dejiyey wixii ay acmaal wanaagsan sameeyeen oo dhan iyo raganimaday geysteen ilaa maalintaa waa nimankii ilaahay uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam reer beder ilaahay baa taalacdo oo yidhi ifcaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya ilaahay baa dembigiina dhaafaya yacni nimanka mansiladaa la gaadhsiiyey wixii ay wacdara dhigeen intaan rabbi ka warramin tan baa loogu horraysiiyey wax looga warramo fii suurati alanfaal maxaa lagu bilaabay aayadda 41 ayaa lagaga warramayaa haniimada sida loo qaybsanayo waclamuu annamaa hanimtum min shayin waa aayadda 41 laakiin aayadda koowaad maxay leedahay yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lillahi waalrasuul fattaquu allaha waaslixuu daata baynikum waaطicuu allaha warasuulahu in kuntum mu'miniin baa ilaha yidhi war fattaquu allaha waaslixuu daata baynikum alla ka cabsada oo dhexdiinna waxa hagaajiya waaطicuu allaha warasuulah alla iyo rasuul ba aqbala haddaad tihiin kuwa mu'miniina baa la yidhi intaa yare muranee soo dhex gashay ayaa rabbi ugu horraysiiyey in loo islaaxiyo koox haddii la isqabto oo mararka qaarkood wax isku tuurtuur iyo dhibba ay gaadho sidii madiine gudaheeda ka dhacday ilaahay qur-aan buu soo dejiyey laleeyahy wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma laba kooxood oo mu'miniinta ka mid ah hadday isdilaan faaslixuu baynahumaa baa ilahay yidhi sulxi ku dhex gala ilahay wuxuu ina leeyahy inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum waar dadka mu'miniinta ahi waa walaalo kale lama odhan waa walaalaa la yidhi waa walaalo walaalku waa maxay macnihiisu walaalku waa ninkaad guushiisa ku faraxdo guuldarradiisa ka naxdid dhibtiisu ku dhibto waxalkiisu wanaag kuu yahy walaalkaa caynkaasu ku yihi ninkaa walaalaatiina hooye abaydin wada dhalay wuxuu ku guulaystay kasta waad ku farxaysaa aqoon ha noqoto cilmi ha noqoto masab ha noqoto waa ku farax gelinaysaa waa walaalkaayoo guulaystay wixii dhib soo gaadhaana waa ku naxdin gelinaysa waa ku warwar gelinaysaa wax allaaliya wixii dhib walaalkaa ku dhaca wax kastaba ha noqdaan idan ilaahay wuxuu leeyay war mu'miniintu waa walaala baa ilaahay leeyay axkaamtii walaalahee noocaa isu dareenka ahayd bay sitaan ee faaslixuu bayna akhawaykum hadday dhibi ka dhex dhacdo hagaajiya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa soo gaadhay war odhanaya reer quba ayaa istuurtuuray oo isdilay oo dhagxan iyo waxbaa xaafadii isku tuureena waa la ismaagay dabeetana nebigu wuxuu yihi idhabuu bina nuslix baynahum xadiiskii bukhaari waarina dareeriya aan hagaajin aan soo islaaxine nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa islaaxu waa waxa qudhay nebi maxamed jamac ka reebay jamacii salaada iyo imaamnimadii wuu ka hadhay isagoo dad heshiisiinaya ilaa iyo uu bilaal markii dambe salaadu waktigeedii intuu dib u dhacay oo abibakar u yimaado o yidhaahdo war nebigii weynaya abibakarowe dadka ma tukinaysaa markaasuu abibakarna yidhi ha haddii aad aqiinto wuu aqiimay
salaadii markay galeen iyagoo ku jira ayuu nebigu xagga dambe ka soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam waa salaadu markaa nebigu abubakar uu ku dhinac xidhan doono ee dadkuna ay u sanqarhayaan oo u tilmaamayaan inuu nebigii yimi abubakarna uu dib u guranayo nebiguna uu rabo inuu tukiyo laakiin uu diiday si kastaba ha noqotee waxaynu leenahay waxay tilmaamaysaa heshiisiinta dadka iyo qiimaha ay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisa ku jira ayuu maqlay saxaabigii kacb ibnu malik la odhan jiray iyo ibnu abi xadrad saxaabi la odhan jiray oo dayn isku haya masaajidka gudihiisa oo uu leeyahy waa lacagtii halkaa dhig waktigii bay gaadhayeen uu kana leeyahy waxba ma hayo oo dabeetana codkoodu kor noqday dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo maradu masaajidka gurihiisu meesha ku nafdhaayeen maradu iska soo fayday dabeetana kacb ibnu malik buu u yeedhay kacab buu wuxuu ku yidhi markuu u yeedhay kacab baa yidhi labayka yaa rasuula allah kuwa ateeca ilaahay rasuulkiisiiyow nebigu gacantu wuxuu ugu tilmaamay arninka nuskada yani badh ka rid ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u ishaaray qad facaltu buu yidhi waan yeelay ilaahay rasuulkiisiiyow nuska aad tidhi ka daa waan aqbalay kii kaluu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qum faaqdihi waar kacoo soo gud baa lagu yidhi riwaayadka qaar baa sheega xadiidka bukhaari inta isugu kooban yahay inuu yaro warwarago uu yidhi ma haysta iyo waa kan war nebigu kama aqbalin ma haysta iyo waxaas war kac baa lagu yidhi orodoo ninka lacagtiisa u keen markii uu nebigu ku celceliyey nebiguna hadduu 3 goor wax faro saxaabadu warka kumay soo celin jirin ayuu iska baxay cumaamadii guntaday ayuu go-i hoose furay suuquu la tegay yaa iibsaday buu yidhi marka kii hoose u iibiyey islaam baa ku soo baxdo war saxaabigii nebi maxamed maxaa ku dhacay waa loo sheegay go-a imisaad ku iibinaysaa 4 dirham buu yidhi 4tii bay ka siisatay go-agana qaado bay tihi 4 dirhamna qaado dabeetana isna 4tii buu keenay oo ninkii nuska ka daayey intii baa goysay oo wuu keenay idan dayn baa laga heshiisiin karaa oo guri baa la heshiisiin karaa oo dagaal baa laga heshiisiin karaa colaad baa lagu heshiisiin karaa oo qadaaya siyaasiya ayaa qur-aanku tilmaamaya baa laga heshiin karaa ama nebigu calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi moxamed xadiidkii abi bakra oo membarka saaran baa xasan ibnu alcali oo yar dee nebigu wuxuu geeriyooday baa xasan isagoo 7 jira marka xasan oo yar oo inan yaraba isa soo taagay nebigoo membarka taagan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam marna xasan buu eegaa marna dadkuu eegaa markii dambe nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inankayga kani waa waayeel waa oday waa sayid walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana la arkaa in ilaahay ku islaaxiyo 2 kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah oo yacni isdilayo ishaya in ilaahay ku islaaxiyo dabcan dagaaladii muslimiinta dhex maray ee ka dhashay dilkii cuhmaan oo cuhmaan dilkiisii markii la dilay cali ibn abi aalib iyo madiine qoladii joogtay waxay u degdegeen bal horta inay khilaafada islaamiga oogaan oo kala dambayntii iyo dowladnimadii soo celiyaan qoladii shaam joogtayna waxay kaga dhegtay nimankii cuhmaan dilay waxa kale ha dambeeyaan horta qolada hala qisaaso labadaa ra'yi ayaa muran ka dhacay kadibna dagaalaa dhacay dagaaladaasi mudday socdeen cali sidii bay ku dhintay niman khawaarijaa dilay xasan ibnu alcaliyi baa lala beectamay waa khaliifo muslim bale culammadu waxay yidhaahdaan xadiidkii 30ka sheegaya khaliifadu inay 30 sannadood ahaanayso 6 bilood ee xasan baa buuxinaysa bay yidhahdaan oo ku soo danoobaya calaa kullin waa khaliifatu lmuslimiin waa kursigii ugu sarreeyey caalamulislaam oo dhan buu fadhiyaa ciidanna wuu haystaa badan waana khaliifadii xaqa ahaa ciidan badanna wuu haystaa laakiin wuxuu aqbalay muslimiintu inay heshiisiiyaan oo dhiigooda la badbaadiyo kursiga ugu sarreeya inuu siisto inuu aqbalo madaxweynenimada intuu isagu ka daadego ninka ka soo horjeeda oo aan xaq markaa u lahayn isagu kaga xaq lahaa inuu siiyo mucaawiya ibnu abi sufyaan inuu yidhaahdo adigu bal maamulka qabo muslimiintu ha heshiiso dhiigooda ha joogsadaan 5 sannadood oo muslimiintu isdilayeen tuulo may furanin muslimiintii xoogga badnaa cahdigii abibakar iyo cuhmaan iyo caalamkaba dawakiyey markay iyagu isku soo jeesteen
tuulo may furanin 5 sannadood ay istilayeen caamul jamaaca markii ka dambeysay ay futuuxaadkii dib u bilaabmeen markaas xooggii muslimiintu dib u soo baxay cidda istishaa dee waa ilaahay baa qur-aan ku tilmaamay fatafshalu watadhaba riixukum waa inaad fashilayso aad jabaysid idan sulxigu wax kasto war gaal baa lala heshiin karaa muslim kale ka kaalay gaala ayaa sulxi lala geli karaa sulxu xudaybiya nabigu calayhi salaatu wasalaam gaal buu la heshiiyey gaaladii maka ka saartay ee dagaalada ku qaadaysay ee dhibta badnayd oo 19 sannadood ay markaa muslimiinta is hayaan sulxul xudaybiya waa sanadkii 6 hijriyada 13 uu maka joogay iyo 6 sannadood 19 sano nimankii nabi maxamed la dagaalamayay oo badr iyo uxud iyo waxa soo dagaal soo dhaceen ayuu wuxuu aqbalay inuu sulxi la galo inuu heshiis la galo oo waliba uu ka tanaasulo xuquuqdiisii wax ka mid ah markii heshiiska la galayay waakii abu jandal uu yimi oo silsilada ku xidhanay wuxuu aqbalay in la celiyo wuxuu aqbalay heshiiskii la qorayay inuu maxay محمد رسول الله بيدادين ما وقلين اللقو بسم الله الرحمن الرحيم بيدادين ما وقلين اللقو قرأ إلهي الرحمن الرحيم يهي بيدي دي قاسوا نبقوا كيدوني أنا قرأ باسمك اللهم وقرأ قاسوا محمد رسول الله ما وقلين محمد بن عبد الله قرأ مركزوا يقولوا قرأ مركزوا على حناقة ويقولي وان قرأي والله أنا مصحينين markaasuu nabigu yiri masax ma ka dhaartay inaan masaxin maxamed ilaahi rasuulkiisa baan ka masaxaya taasina nabiga yiri aniga ay tusalkaad wax ku qortay waa tusoo nabiga masaxay idan tanaazal an ba'd al-ashya sulh baanu la galay soo heshiiska ula galo idan ayuha al-hibba sulhu islaamnimada qiimo weyn buu ku leeyahay siiba markuu yahay muslimiinta dhexdoodii ولذلك بقى إلهي وحو قرآن كله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس دادك فقوده يشر شرك يوحى الله فقيه خير إن بدنا وكمد ملها بال يري كخير كالله يسكو فريه يا كصدقة الله يسكو فريه دادك وحلوغو ورورين يا خير كوكوشيرو يا كدادك اللي هشيسين يبو ربي لي كما حي أو إصلاح بين الناس ولبا إصلاح بين الناس ذاتك بربا وقاله مقعد كهشت كرسي أتكو دونت منصب سياسي أتكو هشت لابد غير بسو هشي سياسي دولة وحلوغة حلامة وحوار ماها ذاتك وحلوه هشيسية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عدة سميسه هشيسين تدتك يقول إلهي رالي هنشيه سدونية فسوف نؤتيه أجرا عظيما با إلهي أجر وين بانو سينينا با إلهي سبحانه وتعالى عصر قدام بي فتن كي امتحان كوي بطين وحي لا يقانين ويستبر رقمين وايو دادكي تاريخ الصوماليات سلاطين تي دادك مقع على مية هانشري دادك دقال ده هقامية فتن كي امتحانك at least waxay ahaan jireen dadka marka reeruhu heshiinaya iyaga loo yeedhay aqligu uu ku dambeeyo casrigan waxa soo baxay dadkii la moodayay inay dadka hoggaan u yihiin oo iyagu imtixaankuba uu yahay fursad iyo shaqo uu yahay ama manaasib dawladeed ku raadinaya dawladda haddaad wax ka weydo gilgil oo see loo gulgulaa waxoogaa reeraha isku khuuqi waa imtixaan inaad kursi dawladeed ku raadiso inaad masaakiinta isku leysid iyo bulshada aad madaxa isu gelisid dawladda hayara daciifto say dawladdu u daciiftaa dadka dhagaa isu geli waa imtixaan yaa samaynaya dadkii ama aqoon-yahan ama siyaasi ama caaqil ama sultaan sheegay ma wada aha laakiin qayb ka mid ah asalku laakiin waxa weeyaan war dadka heshiisiintooda ayaa khayrku ku jira baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala heshiisiinta dadku say u qiimo badantay ilaahay wuxuu ku daray inay ka mid noqoto masaariifu zakaa dhaqaalaha zakada la yidhaahdo islaamku uu ururiyo meelaha lagu bixinayo meel ka mid ayna noqoto oo ilaahay wuxuu leeyahay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin walcaamiliina calayha walmu'allafati quluubuhum maxaa ku xiga
وفي الرغاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سيدة كوحودا لتلمامي وحكمدا والغارمين كو الديموبي الصلح كو الديموبي لبا رير باد هشيسينيس واد سكانتي واد سو دويسي لكن حولها الله يسو شيغانيا مكتبه waxaad ogtay inaanay bixin karin laba reer oo yar ama laba qabiilo waxay doonaan bahaad markaas aad tiri heshiiska qaata maktuna waa aniga ana bixinaya waxa la isku hayo laba nin baad heshiisisay waxoogaa dhowr kun baa la isku hayaa waad heshiisisay dhowrka kunna adaa bixinayaba intaad soo qaadabaad kii la haystay u dhiibay salaada iska bixi haddaad sidaa ku daymowdo dayni kugu raacdo waad bixin kari weydo zakada in lagu siyaabada xaq u leedahay muslimiinta tujaarta iyo dadka waxaysta inta zakada laga qaado inaad zakada ku bixiso maxay islaax bayna annaas oo ilaahay baa leh walghaarimiina baa ka mid ah waa kii saxaabigu qubaysa intuu yimi yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo mas'ala wax weydiistay nebiga oo leh waxaan heshiisiinaan dad heshiisiinayaan ku daymoobay dabeetana waa kii nebigu u tilmaamayay masaladu saddexdan inay u bannaantay inuu isagu ka mid yahay mas'alaba saddexdan inay u bannaantay inuu isagu ka mid yahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka la inoogu sheegay dadka heshiisiintiisu dhaarta in loo furo waan ka dhaartay iyo waanu dhaaranay iyo socon mayso walaa tajcalu allaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas baa ilaah yidhi dhaartiina ha ka dhigina mid lagu hor joogsado in samaha la sameeyo ama ilaahay cabsidiisa lala yimaado amase dadka lagu heshiisiiyo ayuha alaxiba nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya dadkaasi aynu leenahay waa addifaaci almadani dadka dabka ka daminaya waayo waxa kane hadduu kaco waa dab diin iyo wax walba cunaya de dagaalada iyo colaadaha iyo balaayadu kacdo dhiig baa ugu koreeya dembi la galo waa la banaysanaya walidalik buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi alaa ukhbirukum biafdal min darajati الsiyaami wالsalaati wالsadaqati wardadow ma idiin sheegaa soonka iyo salaada iyo sadaqada wax ka fadli badan culamo badani waxay dhahdaan waa نوافش على شيء عند المسلمين صدحدان شيء دوا أركان الإسلام كي ووينا وحي كجري أما وحي أركان الإسلام كلجو كبيي صلاة وعبادة قالي يضك مسلمين تا مسكحدو دا يقانين هير كي حاجة لك تشوكت لما رجع ضوض السنة صلاة الصبح كهرية ليدي خير من الدنيا وما فيها خير ما طلعت عليه الشمس أياك خير بدن بالي عاد عدبه وحي وصابح هذا إذا قفك مسلم كي وحو يقانا صلاة قيمها إلى ذي وحو كلو يقانا صونك قيمها إلى ذي باب قار الريان ليدادو أما لا عدل له نبي محمد كتل المامة صونك وحو دق ما بمجرو صونك يا فضاي شيدنا قفك مسلم كعقل يساعد بيقوي تو يقانا صدقة يا وحلبها يا فضاي شيدنا قفك مسلم كي يقانا صدح شيء مقرر كا عند المسلمين لا يقانو فضيلة كجرتا انت تهي ايو انتو نبي اسكو دراي بو يدو wax ka fadli badan ma idin sheega صدح دي شيء تقانين فضايشودا wax ka sii fadli badan adigu fadaayisha sunnanka ku soo aroray sadaqo dhan soo akhri soon oo dhan soo akhri waxa ku soo aroray fadiila salaad oo dhan soo akhri intaasoo fadiila intaad isku darto nusuusta ku soo aroortay keeda sunna ah ayuu nabi maxamed wuxuu leeyahay wax ka koreeya ma sheega hadaba saxaabadu waxay yiraahdeen bala ha ilaahi rasuulkiisiyo wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam islaaxu daat albayn dadka dhibta dhexdooda oo la islaaxiyaa ka fadli badan dadka dhibta dhexdooda taalla mu'miniinta qabaa'ilka istilaya dowladaha istilaya reeraha isfuraya dadka kala guuraya shirikaadka burburaya waxaa muslimiinta ishaysa dhexdooda oo la islaaxiyo ayaa ka fadli badan buu nabigu yidhi xadiidka abi daawud waliba riwaayadka qaarkood waxa xadiidkaasi riwaayadkiisa qaar ka mid waxay sii tilmaamayaan fa ina fasaadu daat albayn hiya alxaaliqa markuu nabigu tilmaamay dadka dhexdooda oo xumaata waa alxaaliqa waa xiirta
روايات كقار كود با waxay tilmaamayaan idin malihi timahay xirtaaye diintay xirtaa de adigu meesha colaadu ka dhacdo xisaabi mid yar iyo mid weyn iyo qof dumara iyo nin caalima iyo waayeel iyo dhiig muslim wax walba oo la banaystaa marka colaadu dhacdo geelasha la qaadayo xoolaha muslim cirdiga la banaystaa reer hebel caydiisa iyo gabay ku cay oo kan ku cay oo waxan ku cay oo cayda la banaystaa saddexdii uu nabi maxamed xajkii u dambeeyay ee uu nabi maxamed xajo de kaasoo ku dhubaabu xajeeye saddex khudbadood uu jeediyay saddexda khudbadoodba waxa ku jiray war ma idinka warrama war maanta waa maalin ma war bishani waa tuma war beledkani waa kuma iyagoo beledullahi alxaraam taagan ama carafa taagan marka intaasoo su-aalo weydiiyo wuxuu nabigu saddexda goorba ku celceliyey war hoy dhiigiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinuba xaaraan buu idinka yahay sida maalintiina tan bishiina tan beledkiinani uu xaaraan u yahay intaba waa la banaystaa hadday colaad u dhacaan cirdigaa la banaystaa oo markaas aad arkaysaa qaar afmaalla ah oo gabay caya uun tirinaya iyo reer hebel caydooda iyo waxooda ka warramaya waxaan jirin iyo wax jiraba isku daraya maalkaa la banaystaa iyo waxa reer hebel leeyihiin waa la qaadaa dhiiggaa la banaystaa iyo reer hebel halka lagu arkaba kawbaa laga siiyaa waa saddexduu nebigu ka digayey ee saddex khudbadood oo maalintii sagaalaad iyo maalintii labaad iyo maalintii yowm alxaj alakbarka yowm naxarka iyo ayaamu tashriiqa maalinta labaad saddexda khudbadood ee uu jeediyey saddexdaba uu ku tilmaamay war dhiigiina iyo maalkiina iyo naftiinaba waa idinka xaaraan uu nebigu tilmaamayo uu lahaa laa tarjicuu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd aw dulaalan yadribu bacdukum riqaaba bacd idan hiya alxaaliqa diintay xiirtaa haddaan naf iyo maal iyo cirdi toona la nabadgelinaynin diinta soo hadhay maxay noqonaysaa haddaad intaba la xiiro diinta kuu soo hadhaysaa maxay noqonaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxgaanay colaaddu sawbataa la leeyahay camalkiinni la aqbali maayo camalkiinni la aqbali maayo marka kala tagtaan isdishaan soo innaga xadiidka ku soo marayni ayuha alaxiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma camala ibnu aadamu shayun afdala min asalaa bini aadamku ma sameeyo wax ka fadli badan salaad iyo dadka salaaxu daati lbayn iyo khuluqun xasan buu nebigu ku tilmaamay wuxuu nebigu inoo tilmaamayaa qof kasta oo waagu markuu u baryo sadaqa ku waajibtay sadaqaadka waxaa ka mid ah tacdil bayna annaas aw tacdil bayna اثnayn laba dhexdooda inaad u cadaalad samay inaad u heshiisiiso afdal sadaqa islaaxu daati lbayn xadiidka loo sheekh alalbani uu markii dambe saxiixiyey taraajucaadkiisu ku jira xadiistu markii hore daciifiyey markii dambena uu ka noqday ee uu tasxiixiyu ku jira afdal sadaqa islaaxu daati lbayn buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba waa fadiilo weyn saa awgeed waxgaradka iyo waayeelka iyo aqoon-yahanka waxaan u tilmaamaynaa war heshiisiinta ku dadaala oo dadka inay heshiisiisaan mihnad ha idiin noqoto yay mihnad idiin noqonin hadal xanaf leh iyo colaad iyo isku dir iyo maagis shaqaha ka dhigin heshiisiinta dadka la heshiisiiyaa waa waxyaabaha naadirkee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay beentu xataa inay ku bannaanta nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinaya wuxuu leeyahay laysa alkadaabu aladi yuslix bayna annaas fayanmi khayran aw yaquulu khayra laysa alkadaabu beenaalaha ma aha buu nebigu yidhi aladi yuslix bayna annaas ka dadka dhexdooda samaha ka raadinaya oo fayanmi biduuni tashdiid markaad akhrido waa khayr faafinta haddaad shadana waa namiimnimada iyo waa shar faafinta oo dadka dhexdooda faafinaya khayr ama khayr u kala sheegaya qofka muslixee dadka hagaajinaya wuu la faqaa qolo walba gaar buu loo fadhiistaa cid waliba waxay tabanaysay sheegataa cid waliba waxa qallafsana ay sheegto ma soo raro inta khayrka luu raraa qolada kale markuu la hadlayo wuxuu idhahdaa nimankii reer hebel waxaasaan ku arkay ma bale waxay yidhaahdaan hadalkay yidhaahdeen xataa hadday iyagu meel qalloocan ula jeedeen meesha khayrka lagu raraa
saasay sheegeen oo saasay sheegeen oo saasay sheegeen kadaab maaha bay culamadu yidhaahdaan bale imaamu nawowi wuxuu leeyahay والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل ويري حديث الظاهر كيسوح الشيقية حتى بين لبا هدادو قصديدو أتكوه الشيسين سينا يبنان طاي لكن بولي علماء وحي هدان إن التعريض كي دول مركة هي توريضا مرتد أي كفض إن البين غاي حنشيرتو على كل حال حديث علماء بربا وحي كده لشانيا إن دادك إسلاحين تودو dadka badhbaa warka waxay raraan inta dadka isku dirta inta dadka bal had qadeeda u fiirso inta dadka lagu heshiisiinaya xataa beeniba ha soo yara dhex gashee khayr baa lagu helaa inta dadka isku diraysa xataa runna ha ahaatee runtaa naar baa lagu galaa u fiirso waa run naar lagu galayo iyo maxay iyo been khayr lagu helayo haddaad intaad reerka soo dhegaysato warkii ay sheegayeen dee reeruhu markay isqabtaan kolley war kululun bay sheegi doonaan wixii kululaa intaad soo qaadaad tidhaahdaa caynkaasay lahaayeen oo saan bay lahaayeen oo saan bay lahaayeen namiimiyaatay qataat laa yadkhulu ljannata qataat aw namaam buu nebigu yidhi jannada ma galo diradiraaluhu jannada ma galo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam namaam baa tahay xataa haddaad tidhahda wallahi run baa sheegaya runtaadaasaad namaam ku tahay runtaadaasaa naarta lagu galaa waayo waa run qasdigeedu yahay maxay in dadka la isku diro ma run khayr wadaba markaan hebeloo ku xantay intaan xantiisii soo raraan ku idhaahdo wallahi haddeer caynka ayaa caynkaasu ku lahaa waa isku kii diraya walow aan run sheegayo waa run aan janno lagu urinaynin waa run aan janno lagu tegaynin waa run xun idan ayuha alaxiba isku dirku diintu ma bannaynin waxyaabahaasi islaaxa in la raadiyaaba fiican dadka la dhex galo islaaxu waa inaanu diinta ka hor imanin isaguna shuruuduu leeyahy waxay culammadu yidhahdaan sulxi kasta oo muslimiinta la dhex dhigo oo uu ku jiro laba shay ilaahay raalli ahaanshiyihiisu iyo labada isaye raalli ahaanshiyihiisu cadaaladna ay ka muuqato ama cilmi iyo cadaalad ku salaysan waa sulxi la aqbalaya bay yidhaahdaan